dadka ku wada xiriiran noocyada abka ee lagu talagalay in lagu wada sheekaysto ama xiriir lagu sameeyo mararka qaar waxay ka helaan jacayl ayatiin leh halka dadka qaarkiina ay ku hongoobaan qofka aad la sheekaysanaysay oo si lama filaan ah hawada uga baxa sabab aan la gelin ayaa ka mid ah waxyaabaha shukaansiga online-ka lagala kulmo in badan dadka barahaasi isticmaala waxay niyad jab weyn kala kulmaan marka qof uu la sheekaysanayo uu u sheego aan sax ahayn marka xaqiiqda la ogaadana ay dhibaato la kulmaan sidoo kale labada qof marka ugu horeysay ay isbaranayaan waxay isku diraan sawirro iyadoo mararka qaar ay dhacdo inuu sawir beena qofba qofka kale u diro ama qofkii oo daa uu sawirka qof dhalinyaro ah u diro qofka uu la sheekaysanayo dadka aadka u xiiseeya shukaansiga online-ka waxaa kaloo ay la kulmaan dhowr qof inay hal mar xiriir la bilaabaan hadhowna ay ku adkaato qofkii ay ka dooran lahayn dadkaasi inuu si fudud uga soo dhex saaro arrimahan oo isbiirsaday waxay niyad jab weyn ku abuuraan dadka shukaansiga online-ka ah marka ay isbarbar dhigaan shukaansiga labada qof ee foolka ah si kastaba ha ahaatee dadka iskaabulada ee aan weli guursan shukaansiga online-ka inay ka war doonaan way ku qasban yihiin maadaama ay kelinimada u dhaanto ayna dhici karto inay halkaasi ka helaan qof ay nolosha la wadaagaan daraasad la sameeyay sanadkii 2019 ilaa 2020 ayaa lagu ogaaday in shukaansiga online-ka uu ka fursad wanaagsan yahay marka la eego kulanka caadiga ee xiriirku ka samaysmo daraasad cusub oo dhowaan la sameeyay waxaa lagu ogaaday in 61% dadka isku bartay abka shukaansiga ee online-ka uu dhex maray xiriir guur halka daraasad kale oo bishii Abriil la sameeyay lagu sheegay in 4 ka mid ah 5 qof ee isku barata shukaansiga online-ka inay la kulmaan daal iyo niyad jab waxaa kaloo daraasada lagu xusay inay jiraan dad ku guuleystay shukaansiga online-ka oo qoys noqday ubad isku dhalay isla markaana nolol farxad leh ku nool sidoo kale daraasadu waxa ay sheegtay in qofka online-ka ku samaystay xiriir isla markaana ku guuldaraystay inuusan inta badan dib ugu noqon abkan shukaansiga isagoo ka cabsi qaba inuu mar kale dhib la kulmo